طبعا saad arkaysaan wadada waa wado markaasi ay ku yaalaan goobo ganacsi oo kala duwan haday tahay goobaha laga cunteeyo dukaamada dharka laga iibsado amaba waxyaabaha kale ee dadku ay jecel yihiin haday tahay waxa la isku qurxiyo waxyaabaha kale ee qudul daruuriga ah dadka aad arkaysaan hadda wadada socda waxay u badan yihiin dad dalxiisayaal ah oo u yimaaday in ay markaasi soo booqdaan isha biyaha ee la yiraahdo Fontana di Trevi kulay markaan tagno taariikh kooban ayaan ka bixin doonaa asaahati kuma fogaan doonaa muhiim qofkii danaynaya inuu wax badan ka ogaado wuxuu markaasi ka daalan karaa mareegta Wikipedia la yiraahdo ayada markaa inta badan xogta waxyaabaha muhiimka ah ee caalamka ururisa isla mar ahaantaasna bulshada u soo bandhigta dabcan saad aragtaan halkaan waa goobaha ganacsiga dadka socda aad arkaysiin dhamaantooda waa dad dalxiis u socda maanta jawigu waa isku dhex jira saakadii hore jawigu wuxuu ahaa mid aad moodo in cirku ay daruuro saaran yihiin isla mar ahaantaasna la filayay in roob uu da'o walow hadeertaan ay qorax cadceed ay muuqato walow aysan xooganeyn ama diiramaad xooganaysan lahayn si kastaba isbeddelka cimilada waa laga dareemayaa saameynta ay ku yeesheen caalamka intiisa qaasatan wadamada qarbiga ama galbeedka loo yaqaano waa ujeediin qof walba wuxuu soo bandhigayaa hibada uu leeyahay wixii markaa uu isleeyahay alla ilahe dabcan waad ku ganacsi tagi kartaa waxaa barbar socda barnaamijkeeni amaba muuqaalkeeni kan ka horeeyay waxaan uga hadalnay ahmiyadda ay leedahay nabadda oo markaasi in badan aan ku tilmaanay amaba aan ugu yeernay dhiirigelinta nabadda nabadda la dhiirigelishaa waxay markaa horumar u tahay bulshada caafimaadka la helayaa waxbarashada la helayaa maxaan ku raahdaa waxa isfurfuraya ganacsiga dad badan oo caalamka daafiisa ku nool ayaa fursad u helaya wadankii inay soo booqdaan imaadaan dadkaasna marka wadanka waxay soo gelinayaan dhaqaale soo gelinayaan marka waa muhiim qof waloo Soomaali ah meel walba uu joogo dal ama dibad waa inuu ku dadaalaa sidii dibadda loogu taagi lahaa amaba loo adkeyn lahaa nabadda soddonkii sano ugu dambeeyay dalkeena Soomaaliya waad aragteen wuxuu ka bixin lahaa dagaalo sokeeyo oo magacyo badan loo sameeyay hadda ka hadlamayno sababta dagaaladaas ay u dhaceen laakiin waxaan ka hadlaynaa muhiimadda ay leedahay nabadda asxaabta ku xiran kanaalka Hashim Roma waan imaanay dadka aad arkaysaan meesha tuban ma ahan dad mudaharaadaya waa dad doonaya in ay soo booqdaan amaba ay fiirsadaan halka ay ku taalo isha biyaha ee la yiraahdo Fontana di Trevi saad aragtaan biyaha qulqulaya waad aragtaan biyaha qulqulaya dadku ay wada daawanayaan waa la isku sawirayaa marka qaar dhulka waxa ka arkaysaan lacag taala oo shilmaad baa lagu tuuraa ma garanayo sababta loogu tuuraa dayta mid dhaqan amaba mid diina hase ahaatee inta badan galbeedku ayaga dhaqanka iyo diinta ma kala saaraan mar walba waxay leeyihiin dhaqankeena waad aragtaan dadka meesha tuban waa arkaysaan oo waxay daawanayaan waxaan ku raahdaa biyaha meesha ka qulqulaya su'aasha meesha taal waxay tahay ishaan biyaha goorma ee markaasi dibadda loo aasay amaba la sameeyay sida taariikhda ku qoran kullay qofkii raba wuxuu aad uga bogan karaa Wikipedia waxaa la aasaasay 1732 dhismaheeda uu bilowday ilaa ma waxaa la soo gabagabeeyay maxaan ku raahdaa 762 waxay ahaataba halkaan waxay ku taalaa wajahada dhismaha la yiraahdo Nicola Salvi kullay isagana waa qof taariikh ku leh maxaan ku raahdaa taariikhda dalka Talyaaniga oo anaga hadda danayn mayno inaan wax badan ka hadalno laakiin muhiimaddu waxay tahay ishaan biyaha ka qulqulaya sida quruxda bilicda leh loo sameeyay dadku ay u daawanayaan marka insha Allah waxaan filayaa inaad ka wada bogateen inta aan ku kulma doono muuqaalka mid lamid ah
waxaan idinkaga tegayaa sidaasi iyo nabadgelyo waxaase naga xasuusina in aad aadan naga ilaawin subscribe-ta like-ta share-ta meel walba waa joogtaan waxaa inoo ballanaa in aan ku dadaalno sidii aan u adkayn lahayn nabadda waad mahadsantihiin